وبدن dhalinyarada fanaaniinta iyo bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum salaamka bacdi waxaan halkan isugu nimaanay oo halkan aan u joognaa munaasabadii lagu taageerayay maamulada dhexe ee Soomaaliya munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay gabdhaha jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadankan boqortooyada Sacuudiga ee ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya waxayna taageero ka helayaan ragga jaaliyada oo ka mid yahay eekis xildhibaan Cabdullaahi Raago Xuseen oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaankii hore ee waqtigii dawladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed maadaama aynu nahay ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah munaasabadeena oo qaybo fara badan ka kooban waxaynu daha kaga roonaynaa aayadaha quraanka kariimka waxaynu u yeeraynaa Sheekh Makaawi Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Bakina tagdarane taageero wadigiine aanu waran waxaan yeerayaa Marwo Safiya Cabdullaahi Buuleed meeshaan waxaan caawa u nimid munaasabadii gobolada dhexe oo ka mid yihiin Galgaduud iyo Mudug gabdhaha Soomaaliyeed oo wada tahay Galgaduud iyo Mudug ayaan u nimid inaan taageerno walaalahaya shaqada ku hawlan oo jooga Mudug iyo Galgaduud oo ka sameynaya gobol taalo oo sabaxay ayaan salaameynaa oo salaameynaa walaalayaal waxaan leeyahay iyagana ka sii wada hawsha meeshiina annaguna way darab taaganahay ilaahay noo siyaasho waxaa la rabaa inaad isku farqotaan oo isku duubnaataan oo cadowga iska u aragteen waxaan kor daganaa haday nimankeenu ay isku duuban yihiin oo isku meel raacayaan nimankii madax bay u kala carareen waxaa la rabaa adigu inaad madax u kala carareen dhexda xirataan oo goboladiina iyo magaaladiina iyo dadkiina taageertaan madaxweynihiina taageertaan ku-xigeenkiisa taageertaan waxaan meeshaan uga jeedinayaa salaan xasan maxamuud oo madaxweynaheena iyo Umar Cabdirashiid ayaa u jeedinayaa taageero xoog iyo bogaadin mahadsantiin haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay ka qayb qaataan horumarka dalka haweenka jaaliyada ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya waxay u taagan yihiin oo caawa isugu yimaadeen munaasabadan inay ka qayb qaataan maamulka dhawaan loo rajeynayo in loo dhiso gobolada dhexe ee Soomaaliya oo munaasabadiisa
qancin doona qaybihii khudbadaha ayaynu gudagalaynaa markan waxaan u yeerayaa marwo maryan aadan halkan waxaan ka taageeraynaa gobolada dhexe shirka muxuu ahay takafran gobolada galgaduud iyo mudug waxaan leenahay dowladii ka soo baxda halkaas tii dalka iyo dadka iyo diinta anfacda allaha ka dhigo haddaan nahay jaaliyadda waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo nabad halkaa ilaahay inuu ka keeno annaguna waa taageersanahay waxaan leeyahay isku duubnaada dalka hala nabadeeyo dadka abaarta laga saaro colaadaha laga saaro dalka iyo dadka loo hiliyo iyo diinta kala qayqaybi wax ma tarto Soomaaliya ha loo hiliyo ha laga saaro muxuu ahay tajiidaalka colaada dhibaatada ha laga saaro annaguna haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed oo jaaliyadda dibadda nabadan taageeraynaa colaad ma rabno ayaynu galeecinaa fanaaniinta halkan wacdaraha ka muujin doona waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee Mustafa Sheekh Aadan oo ku magac dheer nabada naasna nuugane iyo fanaanada kale oo cod ka baxsan oo birsamaadka aad ku xasuusan doontaan sidee qosona lacagista heesahan ee halkan aad ku daawan doontaan waxaa la hanka saaray lahamiistaha weyn Cabdicasiis Muqbal Siciid muusiga macaan ee dhegeyna ku soo dhici doona waxaa tumaya Macaawiye Maxamed Siciid markan ku soo dhawaada heesii galguud iyo mudug
socdo gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Mudug iyo Galgaduud waxaa u jeedinaa shirkaas shirkii laga mid dhaliyo oo Soomaali isku keenay in uu Ilaahay idankiisa waxaan leenahay qolada aqaladeenta koodan waxaan leenahay ka daayaan dalka iyo diintooda u fikiraan waxaan ismaqalno xafladan iyo midaan xafladan hadda aan joogno iyo xafladii kooreeyay waxaan loo soo qabanqaabiyay walaalkeen xildhibaan Ekis Cabdullaahi haddana waxaan noo bilaabanayaa barnaamijka qaybihiisa kale waxaan u leeyahay fanaanada codka baxsan ee sitay qosol wanaag shirkii horena waan ku taageeray kanna taageeraan ku samaynaynaa waxaanu rabnaa inaan safoor galaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu shirkaasi uu najaxo wax alla wixii ka soo horjeedana ilaahay dadka ka qabto wixii xaasidana ilaahay naga qabto maxaa yeelay gobollada dhexe haddii ay hagaagaan Soomaaliya way hagaagi maanta geelku joogtay dhulbaa loo leeyahay gaariga islaam laga tegiyo garabsi weeyaan sirta la isla wada gaadaya waa guriga baa waxaa gobollada dhexe inay hagaagaan baa rabnaa hadday gobollada dhexe hagaagaan Soomaaliya way hagaagaysaa meesha marka waxay isugu yimid hooyooyin heestii hadraawe ahayd hooyo waligaba waa hilimadisi waxaan haatan leeyahay ha habsaamin weliga waan horataa abwaan hore wuxuu yidhi haddaan hadalka soo qaato kusoo dhawaada heestii haweenka iyo fanaanada codka baxsan Khadiija Yuusuf Maxamuud Khadiija Biicabtooy Hadu
dayninay wadaan horaad naga jirta hasii dayninay wadaan kun jaamac oo ka mid ah gabdhaha dhalinyarada bismillaahi raxmaani raxiim halkaa waxaan ka salaamayaa dhammaan gabdhaha jaaliyadda ee sacuudi carabiya ee soo ogaasimay xafladan quruxda badan آمن قرآن آمن قرآن ولا شيء سفيه قبلها شرفت بدل مناسبة نوسو لازمي وحكوا سمالينا إكس الليمان عبد الله الراجي حسين ولكن يولالين ودمان كسوق قلي حفلة قروح البلد وحاربنا النبض وحنا هاي قبل الصوماليات وكنا السعودية العربية نبضان ربنا دولة وسلامينا وحاربنا قاصة الدولة إلى تعجرته مدو إيجل جدود. waxaan u yeerayaa madiina falfaliir oo ka mid ah haweenka jaaliyadda ee ka soo jeeda gobolada dhexe maaragtay madaxda sharafta leh xildhibaanada asxaabta meeshaas u maada qaasatan gobolada dhexe mudug iyo galgaduud marka waxaan idin sheegayaa oo kale dad waxaan halkan haddana ka salaamayaa madaxweynaheena xasan sheekh maxamuud ilaahay madaxiisa kor ha ka dhigo waa madaxweyne Soomaaliyeed waa israacsanahay gobolada dhexe galgaduud iyo maxay meel iyo mudug iyo galgaduud way israacsan yihiin galgaduud iyo wadada dhan israacan Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha xuroodo cadawga Allah naga qabto wixii shar Allah naga qabto wixii khayr Allah na waafajiyo munaasabada lagu taageerayo maamul samaynta gobolada dhexe annaga oo taageerayna munaasabadaas waxaan ku hambalyaynaynaa dadka ka qayb qaadanaya heshiisiinta ka socota gobolka galgaduud gaar ahaan magaalo madaxdiisa Dhuusamareeb annagoo leh heshiiskaas insha Allah wuxuu dhammaan doonaa guul waana garab taaganahay waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan waxyaabo taabagala oo anfaca gobolada dhexe insha Allah tacaala iyo Soomaali weyn guud ahaanba heshiiskaas ka jira Dhuusamareeb wuxuu ku gogol xaari doonaa maamul samaynta gobolada dhexe dib u heshiisiinta kadib kaas oo ka dhici doona magaalada Cadaado ee caasimadda maamulka waxaan ku hambaliyaynaynaa munaasabada maamul samaynta dadkii ka qayb qaatay gaar ahaan dowladda Soomaaliyeed oo kaalin libaax ka qaadatay oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane cabdirashiid cali sharmaarke iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari waxaan leenahay gudoomiyaha baarlamaanka hambalyo waa idin taageeraynaa sida sharafta leh oo maamul samaynta gobolada dhexe aad uga qayb qaadateen oo aad guusha lixaad kale uga qaadateen insha Allah tacaala maamulku wuxuu noqon doonaa maamul lagu reeyo oo ummadoo dhan ay ku arwaaxaan haddii gobolada dhexe maamulkoodu hagaago Soomaaliya oo dhan way hagaagaysaa insha Allah sidaas daraaddeed waxaan leenahay qof kasta oo Soomaaliya waa inuu ka qayb qaato maamul samaynta gobolada dhexe hiil iyo hoob waa inaan uga qayb qaadano si maamulkii loo helo maamulkii sida loo helo waa in marka ugu horeysa aan samayno dad u qalma oo maamulkii hagi kara aan iska soo dhex saarno markii dib u heshiisiinta la sameeyo waa in dad gobolka waa ognahay kulligiis khayraad badan baa ku jira si khayraadkii shacabkiisu waa ka baahan yahay uga faa'iidaysto waa inaan marka ugu horeysa dad nidaamka yaqaana oo maamulka gobolka hagi kara aan ku istaagno siday uga soo bixi lahaayeen mudane cabdulaahi waxaan ku soo dhaweeyey ma garanayo sharafta iyo maamuuska uu xafladaan u qabanqaabiyey juhdiga badan uu geliyey goboladaas dadku saraaco waxaan leenahay mudane cabdulaahi ku soo dhawow hambalyo
maamuus shacabkaaga oo ku jecel insha Allah ta'ala jaaliyada Soomaaliyeed oo jidka ku nool oo gobolada dhexo garabkaaga insha Allah ta'ala waxaan leenahay nooro ku soo dhawow aamiin qaabada gashay maama aamina halka ku maadsantahay mudane Cabdullaahi ku soo dhawow sharaf weyn bay u tahay maamulka ka dhismaya meesha jaaliyada aad ka soo jeedaan iyo dhammaanba sida aad noo matalaysaan marka aad baa u mahadsantihiin waxaan taabanayaa maamulada iyo maamul goboleedka in laga dhiso la rabo gobolada dhexe baan wax yar ka taabanayaa maamul goboleedku dalku ha kala go'go'o ma ahan hal la isnaco Soomaalida laga go'o ma ahan nabadgelyo si loo helo maamul hala dhiso way colaado badan baa la soo maray dhibaatooyin badan baa la soo maray wax aan la qaadan karin oo far badan baa la soo maray waxa la soo maray si loo baabi'iyo targetka ama mataqaana ujeedada maamuladii la soo dhisay oo dawladdan hadda dawladnimada iyo rasmiga ugu dambeysay macnaheedu dhan waxay ahaayeen hal la helo nabadgelyo hal la helo Soomaalinimo hal la helo qarannimo si loo helo hal la dhiso maamulo ka shaqeeya nabadda hal la dhiso marka taaqira ku jira dib u dhaca ku jira in gobolada dhexe aan weli maamul loo dhisin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo waliba aan magaceena ku hadlaya aan u mahad celinaynaa dadka ku howlan odayaasha siyaasiyiinta waxgaradka oo dalka gudihiisa ku jira oo gobolka jooga oo isu soo dhaweynaya dadka oo nabadgelyada ka shaqeynaya kuwaasan dhammaanteen inaan u mahad celinno ay tahay waxaan u tilmaamaynaa annaguna inaan ayaga ka mid nahay waxay rabaan inaan la rabno ammaan inaan la rabno nabadgelyo dalka in lagu soo dabaalo inaan rabno waxaan ku soo laabanayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen wax gaarayaan ayaga ugu badan ninka la dilayo ama waa walaalkood ama waa aabahood ama waa ninkeedii odageedii waaye marka khasaaraha ugu badan waxaa qaba gabdhaha Soomaaliyeed nimanku qowleysatay isaga badan yihiin waxay rabaan isaga badan yihiin waliba saasoo ayada 20 iyo dhowrkii sano xarbil ahliga ay ayaga masaariifta laga rabay deganaashaha laga rabay nabadgelyada laga rabay marka qaybta aad qaadateen ma qarsana waxaan hubaa haddii midiba ay mid gaarsiiso gabdhaha Soomaaliyeed inay nabadda ka shaqeeyaan ayaga ku guuleysanay iyaga ku najaxaya wanaaga najaxaya gabdhaha Soomaaliyeed dal kala male rag kala male dadku waa dadkoodii dalkuna waa dalkoodii gobolada dhexe waa bartamaha dalka gobolada dhexe waa bartamaha dalka waxba kama gooyi karaan dhinacna kama gooyi karaan dhinacna ma riixi karaan waxa isugu mid ah waqooyiga koonfurta bariga bartamaha dalkay ku jiraan calooshi baa tihiin calooshana waxaa laga rabaa wax walba in lagu qaadaa la rabaa marka dadka Soomaalida xambaara dadka Soomaalida xambaara mideeya midnimadooda ka shaqeeya adikana istisaamaha raggeena wixii qalad galay saamaha nabadgelyadana ka shaqeeya waxa soo haray xafladan quruxda badan iyo isu soo ururka al caruurtiini iyo mataqaana odayaashiina saacadan ka soo tagteen waxaan idin leeyahay joogteeya inta hooga harinina ilaa aad ka gaarsiidaan hadafka maamul sameynta gobolada dhexe ilaa aad ka gaarsiisaan ha ka caajisinina waxaan u arkaa inay xafladda aas-aaskeedu tahay laba qaybood qaybta koowaad inaad muujisaan inaad raalli ka tihiin
in nabadgelyo laga shaqeeyo oo maamul la dhiso qaybteeda koowaad soo sidaa ma aha saasaa qaybta koowaad rabtiin waa maadsantiin waxaan xaqiiqatan qaybta labaadna u arkaa soomaalinimadu inay mid tahay oo ay walaalo tahay oo la nabadeeyo oo aan gobolada dhex kaliya aan Soomaaliya oo dhan fariin aan u diraysaan aan u arkaa dadku inuu mid yahay Soomaaliya walaalo yahay oo la heshiiyo oo la nabadeeyo oo dawlad la noqdo oo qaran la noqdo saasaan u maleynaa inaad barnaamijkiina oo ah xafladda sharafta badan waa idinkaga mahad celinayaa mar labaad soo dhaweynta waa idinkaga mahad celinayaa walaalnimada waa idinkaga mahad celinayaa waxaad iska ilaalisaan wax kasto adinka tarafaraaro idinku keeni kara oo dhax socota ah iska ilaaliya Soomaalinimada qaata nabadgelyada qaata dhismaha maamulada qaata il dawlad iyo qarannimo loo gudbana qaata waan mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh